الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت. بسم الله خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسل الله إلى الناس كافة القائل من أمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو خليفة الله في أرضه وخليفة كتابه وخليفة رسوله وكما قال صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد علماء ودينك مرتدى شرفت له هويوينك أبياشا أرضا دمان كسو قيب كشي حفلة دان لغو معموسة أيوة وحبرشادة وعن السلام يا سلامة الإسلام فتاسوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلامة كذب إن شاء الله تعالى وحي نوفر ميسا حفلة دي أنه وكو بلا بين آيات قرآن الكريم كاه وإنه آخرنا أيوة أستاذ عبد الولي فليتفضل مشكورا. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤذه حفظهما وهو العلي العظيم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انت كده ان شاء الله تعالى وحنا النشيد ونؤخر رايو أرض يا محمد. يقول يا معلم يقول يا أولادي يا أنتر النستاحة معلنك وحويري أرضي دذالة 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 دروستا ودذالة يا رنت وحكو برتا وينانت وهليسان أفرجر سكوليكتا أفصومالي لاباري أول ما أقون جيرين كوينو دذاليو الباب لا نفورة. الله تعالى وحن كسر وين فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. anigoo maamulaha dugsiga Ali Faahiye Geedi isla markaana ka wakiila macallimiinta iyo ardayda iyo dhammaan waalidiinta waxaa marlamaad ku salaaminaa salaada islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. salaan kadib Ali Faahiye Geedi daaim badan soo socday hadda waxaa dhigta oo ka kooban yahay arday dhan 200 oo arday oo u kala baxda laba jifti oo kala ah jiftiga galab subaxleeya iyo galableey. waxaa marka ka shaqeysa macallimiin u xil saaran oo xirfad dheer u leh dugsiyada hoose iyagoo iska xil saaraya aqoontooda iyo xirfadooda. intaas oo rabta inay soo saarto arday leh aqoon iyo tayo iyo akhlaaq fiican leh. intaa kadib macallimiintu qayb joogta baa jira. joogtadaas marka waxay u xil saaran waxa weeye xogaa waxa weeye codsanaysaa in loogu codsanaysaa xogaa oo ah maaragtay xagga nafaca oo ay laba gelin soo noqoto oo labada gelin oo ay shaqeyso oo xagga nafaca xogaa ay maaragtay ku yaryahay. intaa kadib waxaan ku soo dhaweynayaa kormeeraha degmada. إن شاء الله تعالى هاتنا وحصل ويننا كورميركا شيخ عثمان إن شاء الله سوي نشوي ذنا كلمات. siinta ardada dhammaan ururada ayaa waxaan ku salaamayaa salaamta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.
salaan kadib waxaan jeclahay horta wax yar inaan idin baro ismadeennii haddaynu reernahay ama degmada oo nala jooga maanta waa inoo aad baan ugu faraxsanahay midig waxaa la yidhaahdaa arday badan oo iyo rag badan oo muddo dheer oo ay ka maqnaayeen magaalada aan aqoon suldaan ciise xasan cumar baa la dhahaa waa suldaanka aniga xaggayga midig soo xiga suldaanka xagga bidix xigana waxaa la dhahaa suldaan cabdullaahi saalax deer waa salaadiintii reerka nin walba si kale haba aqoonsanaado laakiin waxaan aqoonaa salaadiintii reerka intaas kadib waxaanu idinku nimi baan jeclahay inaan horta xog yar idin ka gudbiyo waxaa la idinku yimi annaga iyo salaadiinta iyo guddoomiyihii degmada iyo wafti kale oo noo socdaba waxay u yimaadeen inay ka soo qaad galaan xafladan maamuuska leh ee maanta joogtaan ee lagu soo bandhigayo jaa-isooyin ay mutaysteen ardadii koowaadka iyo labaadka iyo saddexaadka u gashay imtixaankii teeramka ama imtixaankii dhexe ee dhawaanta la qaaday jaa-isooyinkiina waa diyaar oo waxaa ishraafkooda leh oo gacantooda ku bixinaya ismadeenna muxuu ahay hadda inala joogo intaas markaan idhaahdo kadib waxaan jeclahay wax yar inaan ugu noqdo taariikhdan dugsigan aan hadda maanta joogno dugsigan horta markiisii ugu horreysay laba qol oo waxbarasho iyo qol isugu jira xafiis iyo degaan waxaa dhisay dawladdii talyaaniga ee waddanka gumaysan jirtay muddo hadda laga joogo 50 sano iyo wax dheer hadduu waddanka xornimada qaatay ee dawladdii muxuu ahay Soomaaliya dhalatay dawladihii badan oo waddanka soo maray wax sidaas uma qaban marka laga reebo dawladdii Siyaad Barre oo ku dartay 3 qol oo kale waxbarasho iyo 3 qol oo kale oo domestic ah ama farsamadii gacanta oo kan hadda aan maanta joogno wuxuu iskuulku sida habsamee u shaqeeyaba iskuulku wuxuu muddo dheer soo shaqeeyaba waxaa ka soo baxay oo ka qalin jabiyay oo ka aflaxay arday badan oo dawladihii dalka soo maray ka soo qabtay jagooyin muhiim ah jagooyinkaas oo ay ka mid ahaayeen wasiiro qayb baa ka noqday qayb baa wasiir xigeenno noqday qayb baa agaasimayaal noqday qayb baa raggaas waxay ka noqdeen maareeyaal noqday qayb baa saraakiil ciidan noqday qayb baa waxay noqdeen dhaqaatiir doctor la yaqaan oo caana iyo intaas wax ka badan sida macallimiin maamulayaal agaasimayaal cid walba waxaan idin sheegayaa haddeer labada suldaan mid ka mid ah oo suldaan ciise wuxuu ahaa raggii ardada ahaa halka ka bilaabay ilaa iyo dugsigiisa hoose iyo kii dhexe kii sare meelo kale kusoo dhamaystiray marka iskuulkaasi wuxuu sidaa ahaadaba burburkii markii la gaaray haddee burburkii iskuulladii dalka oo dhan baa burburay laakiin laba sidood bay u burbureen qayb ka mida waxay u burbureen xagga nabadgelyo xumada oo laakiin laba sidood bay u burbureen qayb ka mida waxay u burbureen xagga nabadgelyo xumada oo markii macallinkii ardayga wax barayay iyo ardaygii wax baranayay labaduba ay naftooda u yaabeen meeshii lagu kala cararay haddii maxaa iskuulkaas waa isxiray laakiin innaga magaaladeenna wuxuu isu xiray xag dhaqaale xumo buu isku xiray macallinkii ka shaqaynayay markuu waayey cid ku taageerta hawshaa baaxadda leh oo mujtamaca bulshada u hayo de markuu ku macrulay naftiisu meel u cararay sidaasaan iskuulka u xiray 8 sano kadib markii albaabada isugu laabnaayeen waxa dhashay